dadka culimada ee masalada ka hadlay kuwan dhageystay intaas un bay yiraahdeen waligood baa u soo arartaan laakiin hadalkoodu wuxuu ku soo gabagaboobay xajkii uu tagay faralku kaga dhacayaayo xajkaasi kaama ansixin la oran maayo qaarkoodna mas'alo kale ka hadleen waxay yiraahdeen xoolo xaraana in la isticmaalo ma banaana in xaj lagu tagaa ma banaana de waa runtii ma leeyahay taas ama wasan qaba ama waa mas'alo taamay ahayn waxay haday sidaas dhacdo oo qof uu dambaabo oo xoolo xaraana waxa weeyaan ku tago Makka dabeetana oo halka dee xaj ka niyeysto xaj uu xiraamto amaasha xajka uu sameeyo xajka faralkii ma kaga dhacaya mise jawaab kala haya culimaay bal ha soo bandhigo dadka u soo bandhigo sicada uga hadlo ha yiraahdo xajkaasi ma ansaxay oo dee cilmiyan ha uga doodo ila culimada horeba qaar saa yiri waa jira sheekana inoo soo qoray sheekh timir la soo xaday ma lagu afuri karaa buu leeyahay sidoo kale lacag riba ah laba su'aalood ma israacina insha Allah lacag riba ah sadaqad ma lagu bixin karaa afiduna barakallahu fiik xoolo xaraan sadaqad ma galaan rasuulku kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri la yaqbalu Allahu salatan bighayri tahur wala sadaqatan min ghulul ilaahay ma aqbalo salaad bila tahaara lagu tukaday iyo sadaqad laga bixiyay xoolo xaraan soo hore u sheegnay xoolaha xaraanta ah qofka ribaha ku soo galaan ama si kalaba waa laba nooc xoolaha xaraanta ah kuwa kasab ku soo galay iyo tacab xaraana saa inuu riba ka shaqeeyay ama shaqo xaraana iyo qaar bani aadam uu ka xaday ama uu ka dhacay kuwa bani aadamka uu ka xaday ama uu ka dhacay ama uu ka khiyaameeyay inuu celiyo ayaa waajib ah xoolahooda kuwa kale ee tacabka xaraanta uu ku helayna inuu gacmihiisa ka saaro ayaa waajib ku ah inuu haystaa uma banaana oo inuu xoolaha gacmihiisa ka saaro toobadkeenkiisa kamid inuu xoolo xaraana qofku ku intifaacaana uma banaana inuu cuno inuu cabo inuu dhar ka samaysto guri ka dhisto inuu xaj ku tago ama umro ku tago inuu ku afuro لا يجوز استعمال المال الحرام لا يجوز هذا العدم يكاس يا مالك حرام تا إلا استعماله ما بنانا وابا حرام السيدة إلا استعماله أو بنانتي وحنساو لي مسألة مالين دويد دادكو آدو قوار يعني دادكونا لبا نوع بين نقضينو قارنا hadalkii oo cad bay duwayaan oo ujeedo kale leeyin dadka qaar koodna waxa laga hadalka inay dhageysanba oo ku tiri ku teen hadalka hadii dadka loo dhiibo la yiraahdo qofka kelmadaas si fiican u dhageyso ka dambeeyay gaarsiidna ka gaarsiidna ka u dambeeyay waxa laga yaabaa hadalkii oo kii la yiri baan ahayn inuu gaaro waa dadka xifdigooda iyo fahamkooda iyo qabashadooda aad u kala duwan dadka qaar koodna dee fahamkooda gaaraan masaa'isha diiniga daqiiqa baa culus ka harkay dad ku celcelinaya sheekh burburaawi baa yiri xoolo xaraan lagu xajin karaa ma oran anigu taas waa been abuur taas hadalkaygu uu duuban yahay la dhageysto mas'aladan uu ka hadlayay waxa weeye ee leena weydiiyay qofku dhul ama guri xaq darro uu ku haysto salaada uu ku tukadaa ma ansaxaysa waxaan ku jawaabay dhul ama guri dadleeyin xaq darro inuu ku haystaa waa xaraan dadkii lahaa inuu gacan baneeyana waajiba salaadiisa uu ku tukaday culamaa'ul islaam waxay u badan yihiin oo shaaficiyada iyo maalikiyada iyo xanafiyadu baa yiraahdeen salaadiisu waa ansaxaysa waa salaadiyada waa la amro waa qiimu salaata baa leeyahay shuruudeedii arkaanteedina uu dhameystir joogista gurigan iyo haysashadiisuna waa dambi salaaduna waa cibaado ilaahay amray oo u diray waxaan taa raaciyay xajka waxaan idhi duu xoolo xaraana qofku xajka ku tago ma banaana waa dambi uu ku dambaabaya baan laa yajuus inaad xoolo xaddo ama musuqmaasuq ama laaluush aad ku qaadato ama aad dhacdo ama riba aad ka shaqayso ama khamri ama qaad oo tira xaj baan ku tagayaa laa yajuusu laka kuma banaana taas laakiin taaniga la weydiiyay taa ma ahayn
ma banaanta in gurigaa lagu dhex tukada aniga layma weydiin salaadii lagu dhex tukaday faralku ma kaga dhacayaa baa la weydiin xajku xoolaha xaaraana xaj in lagu tagaa ma banaanta aniga layma weydiin waxaa lay weydiiyey hadday dhacdo uu ku tago oo xajkii uu guto xajkaasi ma ansaxaya bimacnaa faralka ma kaga dhacaya sidii tii horaan iyadana ku jawaabay culamaa ulislaam waxay yidhaahdeen min ashaaficiyati walmaalikiyati walxanafiya faralkii xajku uu ka dhacaya qadiyadda ajar ma ka helaya mise kama helayo masale kale taasi fima baynahu wa bayna allah isaga ilahay baa udhexaysa laakiin faralku uu ka dhacaya waxaan aada ula yaabay dadku salaada lama yaabin dadku oo haddii la idhaahdo guri qofku uu dhacay salaadii uu ku dhex tukaday faralku uu kaga dhacaya lama yaabayaan laakiin haddii la idhaahdo xajkii uu tigidh xaaraana ku tegey hadduu xajka si saxa u guto waa ansaxayaa tigidh xaaraan uu ku tagaana uma banaano waa ku dambaabaya laakiin xajku de waa camal saxoo u qabtay madaxay gacmo wada saarayaan xaaraana lagu xajiye baa la leeyihi war lama laha xaaraana lagu xajiyo qadiyadda laga hadlay way koobanta waa sixatu lxaj faralkii ma kaga dhacaya mise waxa la odhanaya waxba kama jiraan si kastoo aad u xajidee mar kale ku noqo miyaa la odhanaya salaaddii xajka keebaa weyn salaaddaa weyn bilitifaaq salaaddaa xajka ka weyn dadka qaarkood markay si kale ku fahmi waaya waxaan ku uhi ka waran gaadhi nin leey haddaad xadoo deetana masaajidka aad u kaxaysto intaad gaadhiga masaajidka hor dhigto aada masaajidka salaad ku tukato ma la odhanaya mar haddaad masaajidka gaadhi xaaraana ku timi salaaddii aad tukatay kaamay ansixina qalee mise waxaa leeya gaadhiga xaaraantaad soo kaxaysatay waa xaaraan waana dembi laakiin salaaddu waa tii lagu amro iyadu waa faralka u kaaga dhacay dadkao dhami waxay leeyihin mahade waa kala laba salaaddiisa faralku waa kaga dhacaya oo maxaa u dhaxeeya gaadhiga iyo diyaaradda uu maka u raacay eesh ilfarq xoolaha xaaraantii diyaaradun bay saareene ma dawaafka xaaraan oo kacbada ku dawaafay oo ficil saxe iyo sacyiga iyo carafo tegista uu tegey markaa dadka qaarkood oo ujeeddo kala leh masaa-isha noocaas had iyo jeeraale waxaa jira rag fara badan oo mulxidiina oo ilaahay jiritaankiisaba diidan iyo diinulislaamba oo miidiyaha iyo social media aada ugu jira oo qof culimi markuu masale ka hadlo isku daya gaaraan hadday tahay masale yaro qariibo dadkaana hore u maqal inay uga faa'idaystaan la dagaalanka diinulislaam iyagoo usii maraya qofka naqdintiisa iyo wax ka sheegistiisa kuwa waxaa jira calmaaniyiina diinulislaam aan ogolayn oo inala afo inala mide kuwa caqlaaniyiina baa jira kuwa munxarifiina ama ahlulbidaca oo dadka ahlu sunnaha sooda u neceb baa jira oo la dagaalamaya waxaa jira dad caamo ah oo iyagu khaladka ay gelayaan uu yahay markay masale maqlaan mar haddaanay diinta aqoon u lahayn waajibkoodu waxaa inay cid culimaa weydiiyaan laakiin iyaguna diintii afka la gelay iyagoon aqoon u lahayn dabeetana ku dambaabaya oo ku dhacaya qowl cala allahi bigayri cilm waxaasi ma banaana iyo waa banaaye iyo waa waajib iyo waa khalad iyo waa sax bay odhanayaan ilahi subxana watacaala dembiyada wuxuu ku daray waan taqulu cala allahi maa laa taclamuun aan usoo noqday markaa qofkii soomay camal ilaahay u diray buu qabtay hadduu si saxa u qabto soomkiisaasi wuu ka ansaxayaa haddaan le wuu ka ansaxaya xaaraanta uu ku suxuurtay ama uu ku afurayna uma banaane wuu ku dambaabaya waa laba masalo oo laba jiho kala duwan leh midna waa mid la amray midna waa mid loo diiday ta la amray samaynteedu waa sax waa waajib loo diray haddama waxaynu odhanaynaa soomka ha iska daayo ama waxaynu odhanaynaa soomkiisi ha qalleeyo dadka culimada ee masaladaa ka hadlay kuwan dhegaystay intaasun bay yidhahdeen weligood ba ha usoo araartaan laakiin hadalkooda wuxuu kusoo gabagaboobay xajkii uu tegey faralku uu kaga dhacayaayo xajkaasi kaama ansixin la odhan maayo qaarkoodna masale kaley ka hadleen oo waxay yidhaahdeen xoolo xaaraana in la isticmaalaa ma banaana in xaj lagu tagaa ma banaana dee waa runtiin baan leeyahay taas amba waa sidaan qaba amba waa intaan idhi taas laakiin masaladu taa may ahayn waxay ahayd hadday sidaasi dhacdo oo qof uu dambaabo oo xoolo xaaraana waxa weeyaan uu ku tago maka dabeetana uu halkaa dee xaj ka niyeysto xaj uu xiraamto acmaasha xajka uu sameeyo
xajka faralkii ma kaga dhacaya mise kaga dhici maayo mas'aladu taas ah faralku uu kaga dhacayaa baan jawaabtu ahayd qofkii isagu jawaab kala haya culimaay bal ha soo bandhigo dadka soo bandhigo si cad ha uga hadlo ha yiraahdo xajkaasi ma ansaxay oo de cilmiyan ha uga doodo ila culimada horeba qaar saa yiri waa jiraan waa riwaaya can Imam Ahmed rahimahullah ta'ala waa qowl fiqhi oo jira laakiin in la isku dhaleeceeyaa khalad waliba de culimadii hore islaamka sida tiriye madhabka Shaafici dadkeenu ay sheegtaan de ugu horeeyaba in iyaga la iska daayo cidda dambe ee masalada ka hadasha dhaleeca looga dhigo masaladana horta faa'iido weyn baa bay lahayd aniga horta faa'iido weyn bay lahayd dhinac marka laga eego waan ka xumaaday oo dad badan baa dambaabay dadku inay dambaabaan ma jeceli dhinacana waan ku farxo waa la shaqeeyay dad badan oo tukaday soomay sadaqad la baxay quraan akhristay ilaamaan saamixine ayaa ajarkoodii aan rajeynay qiyaamaha la siiyo soo iska saamaxa واي وسامح جزاكم الله خيرا وسامح واي وحنا يميلي سو رسولك عليه الصلاه والسلام وحر ان الله هو الخافض الرافع dadka carabkoodu qof ilaahay hoos u dhigay kor uma qaadi karo qof ilaahay kor u qaadeen hoos uma dhigi karo marka sareynta ilaahay baa laga doonaa hoosayntana in ilaahay la caasiyaaba keenta oo nabigu wuxuu waju'ila dhull wasqaru ala man khalafa amri dulliga iyo hoosaynta waxa dusha laga saaray cidda amarkayga khilaafta anigana tay muhiimkii waxa weeye war waxaad sheegtay saxmay dadku ama aqbalaan ama aqbalin raali ku noqdaan ama yaana ku noqon ilaahay ma raali gelinaya haddaad ilaahay raali gelisana dadku ala raqmi unufihim iyagoo sanka ka tolan bay raali ka noqon doonaan haddaad si dadka raali geliso oo ilaahay ka cadhaysiiso dadka islaahid raali gari hatta haday maalmo ku mashxaradan marka dambe dhulkay kaaga baxaya iyagoo ku nacay oo ku aflagaadeen badarki doonto marka arrinka muhiimka waa in qofku ilaahay subhanahu wa ta'ala raali geliyo wallahu a'lam